salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan dhammaantiin meel walba naga daawanaysaan dunida dacladeeda halkaa naga daawanaysaan waa mandheera good talent asxaabta qaaliga ah maanta waxaan barnaamijka nooga casuuman walaalkeen xasan nuur waa barnaamijkii bati two oo jacaylka kusoo dhawo barnaamijka. ku mahadsan tahay sidaad igu casuumteen. aniga waxaa la dhahaa xasan nuur ku magac dheer bin arfa. m g t hadda iguma horeysa inaan kasoo hormuuqdo laakiin insha allah wax badan aan kasoo hormuuqan doona hadda ka bacdi hadduu ilaahay ma yelihin. maasha allah horta aadaan kaga mahadcelinaya waqtigaada qiimaha badan maaragta aad qayb naga siisay. haddii aan ku weydiiyo ama aan usii gudogala maaragta su-aalaheena macaawa miiska noo saaran saa isku tihiin jacaylka. jaceyl ah jaceylka wallaahi aniga dhankeyga ahaan maraan aaminsanaani jiray laakiin haddadaan la taaganahay ma aaminsani. okay waxaad tiri maraan aaminsanaan jiray jacaylka laakiin haddan tan ma aaminsani. sidee maaragta maxaa sababay oo markaasna aad u aaminsaneed haddana aad u aaminsaneen. horta runtii yaad ilaga hadla waayaho horo jaceyl waa aaminsanaani jiray oo mid saaxiibkayga qaali ah wuxuu dhihi jiray asanurow jaceyl ma jire jaceyl wuu dambeeyay jaceyl marka guurka ka bacday imaanaye dhaaf anu waxaan dhihi jiray jaceyl wuu jiraa jaceyl wuu jira aan ku haysan jiray. so caday waxaan arkay sidii noloshii kasoo socotay hadda waxaan aqoonsaday jaceylba inuu jirin. alla ilahi waxaa kaa dhadhacsiye inan saaxiibka ah oo waxau kugu dhihi jiray jacayl ma jire waxba isku dilin dabeyshan ka saaxa sax sidaad hadda hadalkaadaan ka dhadhaminahay. ha su-aasha u horeysaan ku weydiin rabo waxa waaye waa maxay jacayl maxaadna ka aaminsan tahay waayo waxaad ka aaminsaneed hore aday kugu sheegtay maxaad is leedahay waa maxay jacayl jacaylkan la sheego waa maxay. jaceylka ha jaceylka waxa waaye ma jiraa jacaylka la sheega mise ma jiro waa su-aashii hore aan ku weydiiyey laakiin jacaylka waa maxay asa gebi ahaanba jacaylka waa maxay. jaceylka horta waa jaceylka wuxuu ka mid yahay nolosha dad badan oo isjecel waa arkay jaceylna waa soo maray hadda iguma horeeya laakiin jaceylka wuxuu yahay waa daryeel naxariis labada qof markay maaragtay jaceylka wadaagaan nolosha markay wadaagaan ay wada jiraan ay maaragtay markaas ay yihiin noloshay markaas ayuu jacaylka dhadhan yeelanaya. ha dhadhanka uu yeelanaya. okay aad waan kaa mahad celinayaa su-aasha labaad aan ku weydiin rabo waxaa waaye waqtigii kugu horeeyey aad dareentay jacayl inuu ku haay goormay ahayd xasan nuur ahaan. walaahi ani dhankayga ahaan jaceyl walaahi sanadkaas hadda ma dhihi kari ma xasuusti laakiin waagaan aniga at least class 7 meelahaas 8 from 1 meelahaasaan jaceylka bilaaway. macnaha waxaan ku idhi waqtigii aad maaragta aad dareentay jacayl xasan nuur oo jacayl waa la sheegi jiray waad maqli jirtay waxa ku haya maanta jacayl miya waqti goortii aad isdhahday goormay ahayd camal. waa goorta aan horta nolosha qofuu noloshayda kusoo biiray. ha macnaha kusoo biiritaankaas waa dareenka macnaha ayuu qayb ka yahay. so waxaan arkay marka nolosha inay u baahneedba awal hore waxaan isdhihi jiray jaceyl ma jirin qofkaas markuu noloshayda kusoo biiray aas maaragtay qayb ka qaatay noloshaydii markaasaan nolosheedii niiday aan ka dhacdhacsiyey inaas jaceyl uu jiro markaasaan jaceylba dareemay as a long time marka dambena waa tii aas burburo oo jaceylka maaragtay aan xaqiiqsaday inuu wax maaragtay ilaa ka life inuu ahayn aan aqoonsaday inuu totally wax jaceyl inuu realityga jirinba. ha okay su-aasha kale aan ku weydiinaya maadaama hadda aad ka dhawaajisay jacaylka maaragta inaad wax jiraba maaragta wax aan jirinba aad kasoo qaaday ma jeclaan lahayd maadaama ay kugu dhacdeen kala jeeda xanuun jacayl aad soo martay ma jeclaan lahayd jacaylka in guddi loo sameeyo maaragta ama xafiiso loo furo xafiisahaas maaragta goortii maaragta kugu xumaaday jacaylkaaga ama maaragta aad ka dareento waxyaala hadba aan ka hadla aad isdhihi lahayd maanta gabadhi aad jeceshahay waxaa kuu diideen familkooda ama kasoo qaada familkooda kuu diideen adna aada u jeceshahay gabadha ayadana aaday kugu baahan tahay. waalidka inta badan maaragta isu diidaan ardayda haddii aad baxdo ma isdhihi lahayd xafiisada maaragta loogu dacwoodo ama loo tago hadaladaas inay kuu suurtageliyaan ma jeclaan lahayd guddi macnaha in loo furo ama xafiisa loo furo jacaylku taas wallahi jacaylku leeyahay. taas wallahi haddii la dhahaa guddiga loo suubinaa waxaa waaye waxay ka mid tahay waqti dhumiska
Okay. waayo jaceylka dhabta ah wuxuu bilaabanaa labada qof markay isguursadaan ay nolosha wadaagaan ay xaruurtooda arkaan markaasuu jaceylka dhabta u imaadaa. inta kale laakiin jaceylka ka hore waxaa waaye waa madadaalis oo nolosha besa la iskaga mashquulinaa mooy jaceyl maaragtay batata ma jacayl ma jira ayaad leedahay. sax Een, haddii aan ku weydiiyo, maadaama aad maaragta hadda aad ii sheegtay oo maaragta waqtiyo dhow maaragta aad dareentay jacaylka, in badan waxaan filaa baraha bulshada waa ka daawatay ama qof maaragta sheegaya jacaylka hadlayo, jacaylkii hore iyo jacaylkan maanta la taagan yahay, keebaad is leedahay jacaylkaasaa wanaagsan, kii hore iyo kan dambe maaragta dhalinyaradan dambe oo sanadadan dambe? ani wallaahi waxaan dhihi lahay jaceylkii horaa wanaagsan waayo dhalinyarada hadda joogto waxooda jecel lama dhihi karo runta hadii laga hadlo. Okay. waxaa waaye waa ciyaar ay waxa aan jirin oo nolosha ka saabsaneen oo maaragtay nolosha u fiicneen oo maciishadaha dambe u fiicneen ay ku dhaqaaqayaan. marka aniga waxaan dhihi lahay jecel hadda nolosha hadda la taagan yahay sanadkan iyo waayahan hadda la joogo walaahi dabcan waxaad leedahay jacaylkan jacaylka hore ayaa ka wanaagsan. sax waxaan kusii shaqeynaa haladaa kuu sheega Haye. qisa jecel wiil dhalinyaro ah saaxiibanaana wuu ila wadaagay oo jecel xanuun badan ahayd. adi waayo adi wuxuu saaxiibkiisay mid ay saaxiib yihiin walaashii uu la jiray siduu ula jiray loo jiray adi intaasoo muddo sanadooyin markay wada qaateen adi marka dambe waa la ogaaday saaxiibkiisa ogaaday inuu walaashiisay uu la jiro oo nolosha la wadaagayo oo jecel la jilayo. so maalmaha ka bacday adi way maaragtay way isballansadeen oo maqaayad ma adi waxay aadeen hotel ay aadeen. so wiilkii saaxiibkiisa ahay isagana wuu ka daba baxay marka gaari adi telefoon uu qaatay camera uu qaatay iyagoo isla fadhiyaan uu sawir ka qaaday. habeenkii markay usoo galbadeen ay waxyaawada jawi macaan ay soo qaateen xaafad usoo galbadeen uu sawirkii usoo diray wuxuu wuu yaabay waxaas dhahay saaxiibkaaga oo walaashiisa ka shakaansanaysa oo walaashiisa la jirtay wuu ku ogaadee ma aragtaa is dhahay. saas awgeed markaadi way kala xanaaqeen wiilkii wuu ka xanaaqay oo walaashiisa dartii uu la jiray uu ka xanaaqay adi muddaa kasoo wareegtay. macnaha labadii wiil ay isku dhaceen? labadii wiil isku dhaceen. Okay. waa isku dhaceen adi say saas u ahayd abaar ka baxday cunugii saaxiib ahaayeen aawmaaday wuxuu ku dhahay saaxiibo iga raal noqo qofkan walaashay kuma kalsoonaan karo uma dhiibi kari walaashay adaan ku dhiibaa camal. so walaashiisu u dhiibay walaashiisu ku aaminay saaxiibay ahaayeen wuu ku ogaay meel kasta isla aadeen waa ka warqabay say saas u ahayd adi muddo waxaa soo gaarta marka guur in maaragtay guur ay kala dalbadaan. so marka gabadhii waxaa dhacday in qof kale maaragta uu soo doontay oo familka u imaado qof kale oo familka lahaa kasoo doontay. saas awgii marka wiilkii way u sheegtay way la wadaagtay familka ay ugu darrabaan oo xoog baa ligu darraba adi ani ma rabi adaan ku rabaa ay ku dhahday oo adaa intaasoo muddo jecel aan soo wadaagay inay ku dhahday. soo cunugii wax buu ka qaban waayey jaceylkii saasay wax ka qaban waayey adi marka dambe wiilkii saaxiibe ahayn oo gabadha la dhashay wuxuu ka ballan qaaday inuu ku dari doono adi wuxuu soo qaaday dahabyo iyo waxaanu soo qaaday waxay ku ballameen waa maalintii oroosku dhacay inay isla booda baxsadaan. batatanba inuu gabadha maaragta cidooda oo kala baxo meel kale oo meel kale ay kusoo guursadaan ay ku wada heshiiyeen wiilkii gabadha ay ku wada heshiiyeen iyo walaalkeedii waxay ku wada heshiiyeen inay wada baxaan ay maaragtay soo ay meel kale kusoo guursadaan. yarkii markee wuxuu fiiriyey marka haddii la fiiriyey jiiraan ay ahaayeen way isku soo horjeedeen waalidiintoodii cunuga waalidiintooda way isku fiicneed. marka dambe wiilku wuu fikiray wuxuu dhahay maamad hooyadiisu u imaaday wuxuu ku dhahay hooyo wiil gabaraan saaxiibinaan aan jeclaaday waana la guursan rabaa. adi marka isaga ahaantiis isaga kuma dhihin anaa jeclaaday kuma dhihin wiilaan saaxiibanahay gabaruu jukaansadan jiray laga guursan rabaa marka maxaan talaon siiyaa uu dhahay marka isigana ahayd laakiin just qof kale uu ka dhigay. soos awgeed marka maamadii waxay ku dhahday aan cunugaas waxaan kula talin lahay inuu gabadhaas iska dhaafo wuxuuna u sheegay inay reerku isku fiicnaayeen. so maamadii waxay dhahday hadday reerku isku fiican yihiin inuu gabadhaas ula baxsanin uu iska roonaado oo maaragtay iska dhaafaa ka wanaagsan. so cunugii wuxuu qaatay talooda hooyadiisuu qaatay marka wuu iska dhaafay wuu ka tanaasulay la bixitaankii.
adii sidee muddo waxaa la gaaray arooskiyaa la gaaray. cunugii gabadhii waxay ku dhihi jirtay aan isguursana, aan isla wada baxsana. cunuga wuxuu dhihi jiray maya sidii u ahayd maalinta arooskiyaa la gaaray. cunugii warka adii at least wuxuu daraawalna wuu ku fiicnaay oo daraawalna wuu gaari wadowna wuu garanay. saas awgii maamadii jiiraankii gabadhii dhashay cunugii inay u imaada ay ku dhahday adaa gabadhan guriga u galbani oo daraawal u noqon. cunugiina waxaa ahay jecel dartii waa habeenkaas dhan maan saax ninkii waa oynahay. maalintaas beri aroos waa la dhahay, habeenkaas dhan aan oynayo dhahay oo jecel dartii aan oynayo oo la dhahay iska dhaaf. maamada hooyaday taladeeda aan qaatay, waa la baxsan kari kii jaanis badan waa u haysta kii waa la baxsan kari, laakiin talada hooyaday inaan fiiriy aan iska dhaaf u dhahay. habeenkaas dhan siduu oynaay. maalintii arooska kii anaa dareewal u hay kii gabadhaan jecelahay aan dareewal u noqdo kii oo xaafadda u galbiy kii guriga u galbiy. saas awgii maalintaas markay inaa adkeysan waayo baadiyo aaday. wuxuu marka niyadiisu kusoo dejiyey baadiyo xagguu aaday, niyadiisu soo dejiyey. jecel waa kaas marka maasha allah aadaan kaga mahad celinaya. waa qiso aada u xanuun badan. misna gabadhii adiga aada jecleed inaad maaragta nin kale aada gurigiisa aada ugu hoyso, adigaba weli haddana aada dareewal u noqoto gaarigii lagu hoyni lahay adiga aad gacantaada ku wado. dabcan wallahi waa qiso aada u xanuun badan. maasha allah aadaan kaga mahad celinaya maaragta walaalkii qaaliga. waqtigaada qiimaha iyo qadarinta mudan aada qeyb naga siisay. barnaamijkeenana caawa maaragta mise galabkan irahde halkaas ayuu noogu egyahay. maxaa leedahay maaragta ugu dambeyn dadka ku xiran Mandera Got Talent maadaama adiba aad xiban aad ka tahay dhalinyarada maaragta Mandera Got Talent? ani Mandera Got Talent waa ka tirsanahay. waxaan dhihi lahay asxaabta please share, like, subscribe, comments noogu dadaala insha allah. dhankiina ayaan ka rajayn doonaa meel heersan inaan gaarsiisin aan ka rajayn doonaa insha allahu tacaala. hadna waa codsi asxaabta qaaliga, subscribe-ta, like-ta, comment-ta, share-ta dhammaan waa dhankiina. ugu dambeyn waxaan ugu diri lahay asxaabta hadda taagan oo jecel aan aaminsana leh jecel ma jiraan dhihi lahay hadda waayahan. marka dabcan waad aragtaan xasan nuur caadi ayuu idin siihiin caadi. dhalinyarada maaragta jecelka la daala dhacayo misna maaragta darbiyada la taagan jecel awgii misna leh jecel ayaa maaragta la xanuunsanahay. isbitaalada la jiifaan wuxuu leeyahay taa waa aragtaa waa dareen ma ahna jecel. haatabaha laga fiirsaday jecelku wuxuu yahay. dabcan siduu hore nooga sheegay jecelku wuxuu imaadaa guurka kadib. aada ugu mahadsan yahay sida wanaagsan oo barnaamijka nagula qeyb qaatay. intaan barnaamij kale oo lamid aan kulmi doono akhyaarta qaaliga waxaan kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.